Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaynu soo wadnay qaabka aan u soo celin karno haddii facebookeeni la qaatay ama la jabsaday ama wax badan baynu soo eegaynay maalmahanba. Waxaynu maanta eegaynaa haddii alla idmo oo aynu ku daraynaa facebook iminka wuxuu soo rogay hab ka duwan hababkii hore oo loo soo celin jiray faylasha. waxaana habka hadda aad loo isticmaalo uu yahay tusaale ahaan telefoon waxaa jira aad badanaa kasoo geli jirtay facebooka ama waxaa jirtay computer aad kasoo geli jirtay noocuu doonaba ha noqdo laakiin shay waxaa jiray aad badanaa kasoo geli jirtay markaa facebookaga iyo account-kaaga aad kasoo geli jirtay. kaas hadduu jiro waxaa samayn kartaa waxa la yidhaahdo isaga ayaad soo gelaysaa gudihiisa. kadib markaad soo gasho waxaad samaynaysaa waxa la yidhaahdo login iyo log out iyo waxaad kasoo geli jirtay oo dhan. maraad kasoo geli jirtay maraad ka bixi jirtay intaba way jirtay. kadib waxaad samaynaysaa account-kaaga soo gelaysaa. waxaad samaynaysaa inaad reset garaysid oo aad ma garanaysaa passwordkii reset ku samaysid waad awoodi kartaa. haddii xitaa kale waxaad samayn kartaa aad kasoo ceshatid waad awoodi kartaa. for example facebook waad ku dhex jirtaa shayga baad ku jirtaa. haddii aad gasho marka facebooka dhexdiisii reset waa dhihi kartaa sababtoo ah micnaheedu waxa weeyaan facebook wuxuu yaqaanaa oo aqoonsaday computerkaas ama shayga kale ayuu yaqaanaa oo uu aad u aqoonsaday. wuuna garanayaa marka aad soo geliso macluumaadkii oo dhan. marka haddii uu jiro telefoon ama computer ama aalad kale oo badanaa kasoo geli jirtay way fududahay inaad soo ceshatid. weliba waxaa kaloo wanaagsan marka aad rabtid inaad soo ceshatid wifi-gii guriga kuugu xidhnaa home wifi-gii ama ma garanaysaa network kale oo aad badanaa kasoo geli jirta hadduu jiro kaas ayuunbaad kasii gelaysaa mid kale aad ha u isticmaalin. waxaa kaloo jira haddii account-kii kaaba lumay oo labada habe horeba kuu shaqayn waayeen oo aan kasoo hadalnay haddii kuu shaqayn waayaan habkani waa hab caadi ah oo wanaagsan. wuxuu ku siinayaa linkigaas ayaad tegeysaan sharaxaada ayaan idiinku soo darayaa xagga hoose descriptionka videoga ayaa ka heli doontaan. linkiga markaa gashaan waxaad buuxinaysaa facebookaagii waxaad buuxinaysaa ID-gaaga tusaale ahaan haddii aad haysato passport haddaad haysato dowladda ID-geedii oo kale haddaad haysato oo weliba dowladdu ay bixisay oo kale haddaad haysato haddii aad haysato ID kale haddaad haysato oo ma garanaysaa laakiin sharciyeysan oo kale aad iyo aad bay u wanaagsan tahay kaasoo kalena aad u isticmaashid wuxuuna ku anfacayaa weliba kaasi aad ayuu ku caawinayaa oo ku anfacayaa inay kuu soo celiyaan. marka waxaad samaynaysaa linkiga ayaad tegeysaa. linkiga markaad tegtid kadib waxaad gelinaysaa ID-gaagii ama passportkaagii ama wixii kale ID ah haysatoo fiican. kadibna waxaad samaynaysaa facebookaad isticmaali jirtay ayaad gelinaysaa laftiisa emailkii ama telefoonkaa ku isticmaalaysay. kadibna waxaad gelinaysaa oo ugu dambeeya waxa la yidhaahdo just waad diraysaa. marka facebook wuxuu kugu soo jawaabayaa 2 maalmood ama 1 maalin ayuu kugu soo jawaabaya. marka linkiga marka aan idiin sheegayo waa kan weeyaan. waxaad u baahan tahay inaad buuxiso foomkan hoosoo kale ayaad buuxinaysaa. marka foomkan oo kale waxaad gelinaysaa tusaale ahaan waxa la yidhaahdo informationkaagii ID-gaagii oo kale gelinaysaa. browse baad dhahaysaa kadibna sawir baad marka hore kasoo qaadaysaa ama scan ayaa kasoo qaadaysaa halkanaad soo gelinaysaa. markaad soo geliso kadib halkan waxaad gelinaysaa emailkaagii ama telefoonkaagii markaa rabtay inaad soo ceshato kadibna waxaa leedahay send. so xataa haddii la jabsaday qofka ID-giisii oo sawirkiisii saaran yahay badanaa inuu usoo celiyaan ayay u dhowdahay. weliba waxa aad u wanaagsan facebooka aad isticmaalayso kale magacaaga ku isticmaal ama ha lasoo gaabiyo sawirkaaga hadduu kale kuu saaran yahay waa okay laftigiisu. laakiin qofku markuu halkan soo gaaro waxay u badan tahay in facebookiisii loo soo celiyo hadhowna email loo soo diro. marka farsamadii xalay ka dhimanayd casharkeennii intan ayay ahayd. linkiga kan lagu soo gelayana waxaan idiin soo gelinaya xagga descriptionka ayaa ka arki doontaan. aad iyo aad ba ugu mahadsantihiin daawashadiina. asalaamu calaykum.